soo dhawaad soo dhawaada asxaabay. inaan waxaan rabaa qof kasta oo soo gala aan soo qabtaan rabaa. qof kasta oo soo gala intaan qaban karo inaan idin soo qabtaan rabaa. weligeed dad horta ma soo qabanin, laakiin waxaan rabaa dadka inaan soo qabto, inaan idin soo qabtaan rabaa. oo qof kastaba ideyadiisa uu dhiibto. I think kanaa la rabaa miya mise kanaa la daaraa, I don't know. waxbaa meeshaan ka khaldan, iisoo qora sida la dhaho, anigu ma aqaane. aad okay okay yaan soo qabtaa, geebaan soo qabtaa. haddana intaan saa ugu jiray buu iga baxay. marka soo dalbo qof kasto, anigu ma arka kaamirada ah. waxaan rabaa inaan inta idin soo qabto wixii aan idin dhegaysiinayey, wixii aan idin dhegaysiinayey. gabadhahay ninkii arkay saan arkay ii caynayey, gabadhii soortu qaaday, ee dadkii aftidooda ka jeedinayay qolkeeda oo lahaa ka xumaa dhibaatada la ii geystay inay baloogaysay. waad u jeedeen. aniguse dadka awal ma soo qaban jirinin, waxaanse hadda idin tusayaa in aan dadka soo qabto. waaban hadda bilaabayaaba inaan dadka dhegaysto. youtube ay lacag nooga samaynaysaa. anigoon youtube lacag ka samaynaynba waxaan rabaa facebook inaan siduu tahay uga soo hadlo. marka waxaan rabaa ma aqaano anigu qofkaas warigat. anyway, nasiib wanaag inaan idin soo qabtaan rabay. laakiin qofkii raba whatsappkayga, qofkii nambarkayga yaqaana 612-987-6820 iga soo wac. qofkii lambarkayga yaqaana sidee kuu soo qabtaa? soo dalbo, isoo dalbo. raxmo sardheeye. okay, raxma qabo waa kusoo diray. answer I don't know. arid buu leeyahay. arid awal calaamad green, halkan greena iisoo bixi jirtay, hadda greenkii ma arko. I don't know wax khaldan. raxma waa kuu soo diray, ma aragtid miya? qofkii raba whatsappkayga ha iga soo waco. kolle xilligan reer yurub waa wada hurdaanba ila tahay, waqti dambe u tahay. okay, raxma waa kuu soo diray. kaamiradaada daaro, kaamiradaada on ka dhig. waa feelgaroobe. waa baranaya saan maalin walbaba dad usoo qabanayo. okay, qofkaanaan bar soo qabanaya. haye, okay, qof kasta oo aan usoo diro ma soo qabsoomaayo. I don't know why. raxma soo qabso, aan kuu soo dira. haddana kaamiradiina shita, teleefonkana sidaa u taaga, sidaa u taaga. anugu awal saana u jiifin jiray, laakiin kaamiradii halkaan inay green noqotaa la rabay. marka reasonkay greenka la noqon weyday muxuu yahay? masaanan dhahaa. haye haddii saas la dhahana maba soo baxaysaba, maba dhiiqaaye. anyway, ma idinkaan kaamiradiina shaqaynaynin. okay, kaamiradaada on ka dhig.
kaamiradaida on waaba tahay kaamiradayda sidee on oga dhigaa calaamadda markaan taabto wuxuu ku leeyahay guest request allow your view request join as the question is the power okay marka anyway kaamiradayda halkaas inay green ka noqotaa la rabay mana noqonayso I don't know qofkaanaan barsii daynaya haye na jirto waxaan ku soo qabtaa inaa adeer isoo waca lambarkayga soo waca 612 haa qof baa soo galay halo maama haa maama soo dhawow waan dhowahay maama ma imi salaamu calaykum ma fiican tahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu maadaama aan dumar nahay oo caydii lay caayay aan idin dhegaysiiyey hadda ka hor oo dhib badan la ii geystay gabdho soomaaliyeedna ay saan arka u hadlaayeen maxaad u aragtaa waa dad ku dhibaataynayay waa dad kaa xun waa dad makhruuqiina waxaan leenahay insha allahu tacaala waad ka guulaysanaysaa soomaali xumaantay ka shaqaysaa ilaahay wanaagga ha garansiiyo maamo fiican baa tahay waan kugu faraxsannahay maanta aad iyo aad 100% ilaahay diintaada macaan raxmadeeda kugu soo rogay ee kugu soo celiyey aad iyo aad baan ku hadlaynaa hano barnaamijka ma la socotay mise dib baa ka soo si fiican baan la soconay hana abuukar maadaama ay soo xirtay madax iyo calool oo ay ka dhigaysay inuu wax afiyey oo nice yahay oo si fiican u hadlaysa oo dadkii ka xumaa ay telefoonada ku daminayso maxay kula tahay ma qof wanaagsan bay ka hadlaysay ma dhibaatadayday ku farxaysay maxay kula ekayd maya waa qof jabkaaga iyo dhibaatadaada doonaya ayaanu arkaynay anagu si fiican baanu arkaynay oo dhageysanaynay marka dadkiina waji fiican bay tusaysaa oo hadal fiican bay kula hadlaysaa hana waxaan leenahay ka dhaadhac maama malyuun 100% maxaad qof muslina oo walaashaya oo gabar Soomaaliyeeda aad dhibaatadeeda aad ka helaysaa ayaan leenahay madaxiyo caloolna waa inuu ka haraa madaxiyo calool ninka madaxa weyn leh waxaan leenahay waa dumar waxaad ku taagsanaysaa faraha kala bax baan leenahay ilaahay nin buu kaa dhigee ma ogtahay inuusan ahayn madax iyo calool waxa ay cayrsanaya ee ay yihiin niman waaweyn oo culmo isku sheegaya oo ka xun gabar baa la kufsaday maxay idinla tahay markaan iri waa la isoo kufsaday ma waxay idinla eg tahay inaan iska been abuuranayay mise waxay idinla eg tahay in ay wax jira yihiin oo Soomaalideena ka buuxaan laakiin taabuu ay ahayd oo laga hadli karin maya waa wax jira oo xaqiiqo ah hadii la sheego dulmiga lagu soo dulmiyay iyo dhibaatada lagu soo geystay hadii aad sheegtay maxaa ku jira ay kugu haystaan waa culimo isku sheegeen in diinta fahansani ma kugu qabsanayaba gabadh la dhibaata la ii geystay yaraantaydii kugu qabsan maayo ku oran maayaba maxaad u tiri thank you maamo dad kalaan Chinese ka seenaya aad baad u mahadsantihiin waan ku jecelahay anagu aad iyo aad baan ku jecelahay oo ku taageersanahay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waliga bil aadmi ha uga tagin ma insha allah maanta insha allah waayahay waa insha allah thank you adaa mudan haye soo dhawaada waad maqlaysaa halkan waxaan rabaa debate inaan ka sameeyo anigu horta hore weligay allahay social media markaan soo galo waxaan dhihi jiray aniga inta iska hadlaan danahayga qabsadaan ka dhaqaaqi jiray laakiin hadda waxaan idiin bilaabayaa dadka aftidooda inaan helo in aan dulmano badan halkaan aan soo qaban doono marka yaan soo qabtaa invite miyuu ileeyahay halkaanu invite iga leeyo invite xagee ka invite gareeya okay ninkan soo qabso wiilow hadda ka hor bay intay gabari cid soo qabatay baa waxay weyday soo qabso waa ku soo bahalkeeyay soo qabso waxa hadda ka hor bay intay gabar nin soo qabatay bay meeshay ka goyn lahayd bay garan weyday marka anigu waxaan ka baqi jirayba haddaan dad soo qabto
in aan garan waayo niyow nagu kala kaxee kaamiradaydu ma daarna laakiin soo dalbada faatax miyaa la dhahaa faatax faarax shwaryaa iga tag kii tuugga ahaayo waxayga xadi jiray wartag tuugyahow war aawa dumarkii ragga iskuma fiicnina aawa dumarkii aawe aniga iyo faarax inkana kala leexleexiya war dumarkow soo qabqabsada laakiin waxaad un ogaataan inaan samayn doono inaan mar walbaba idin soo qabqabto inaan samayn doono soo habar walbaba intay halkaan soo baraaqsato gar haddaad naqaysid ha naqin gar eexaad doqon haddaad tahayna fariid ha isaga dhigin social mediaha haddaadan aqoonin sida loo hadlana dad baan wax u kala waxaynayaa ha oranin anigu haddaan halkaan gar ka naqi lahaa gar eexeed ma naqeen laakiin waxaan idiin sheegayaa inaan la ijeclaadeen haddaan dhaho gar baan idiin naqayaa sow gari laba qof kama wada qosliso sow ayadoo maqlaysa waxa la igu caynayay bay waxay rabtaa inay anigana ii qosasho haa asna gar leh ayana gar leh inay tiraahdo gabadhii ka oyday oo tiri intaasoo beri baan isbitaal ugu jirayna waryaha wiil ma ahana aawo gabdhuhu ma soo fuuli yaqaanaan miyaa meesha soo wiilkaasaan soo qabto warbar soo qabso maandhow soo waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu haddaan gar ka dhaqayo social media haddaan gar ka naqayo walaahaana gar eexeed idiin naqeen ee intaan idin dhagaysto baan say tahay idiin kala bixin lahaa sow labada qof oo diriirsan mid baan gargaran mid baana garle soo dhawo hooy ma la socotay barnaamijka ninkaasi sharqantiisaa iska badatay marka wiil dhalinyaraa buu ahaa laakiin aan ka xumahay dumarkaba maana wiiftooyinkaa ka buuxa wiilashana wiilal badanoo ijecel baa soo dhawow aad baan ku salaamaya inaadeer waan kaa qaaday inaadeer macaanta soo dhawow fiican tahay inaadeer rag waa cada weeyaan ma maqashay waan garta waana ay inkastay aabbayaashan iyo walaashiin looma jabo cadawaagan allaha jabiyo maasha allah haddaad ka soo noqotay qofku carab iyo labada weeye qofku wuu qardamaa kowdhe qaladkana waa laga soo noqdaa islaamka ahi iimaankiisa ilaahay baa xukume arrinta waxaan rabnaa dad sheekada la socotay markii aniga la icaayay oo social mediaha aan soo dhigay caydaydii sheekh kishka soo dhawow markaan social mediaha soo dhigay caydaydii oo la dhegaystay oo dhib badan la ii geystay gabadhii social mediaha ku jirtay ee hana abuukar ahayd ee aniga igu dacdacsato weliba inta hadashay tiri haa waxaan gabar telefoonkii ka go-ay tiri waree gaalkacyood aribo way tiri ku dhaadhaajisay nacayb iyo lagaado halkaa ka muujisay maxay kuula ekayd qof wanaag rabta gabadha annagu asxaab baan nahay baaliskana u iskula jirnaa midda kale maalin horena gabar kale mareexaana oon raalli ka ahayn ayay la wareysatay dabeedna khadka kusoo xirtay oo galad fiicisay inanta kalena waa isnaqaanaa yarta kale ee mareexaan I don't understand waxay dumarka u dhiganaysaa laakiin de hodan hana waa la iska celinaya waa la qabanaya midda kale cidina shaqa ku kumalaynaader laaglan dheera abaatay ninna ha u joojinin waxaan facebooka kana boolshir ku dhe odayaashan tan iyo habraha kan caytamay midda kale naag anigu naag u tiri wax ka sheegaysa iyadii bay ka hoos shidan tahay maxaa dumarka kale u geeyey anu waa ku taageersanayna adeer gacliye soo dhawow thank you inaadeer dad badan baa ku jiraan soo dhaweynaya sheekh kishka ma ku soo qabtaa waa idin soo qabqabanayaa meeshaan waa ku neefsanaya horta hadda ka bacdi maxkamad baaban ka samaynayaa halkan dulmanaha in badan bay waxay dhaheen
maama malyuuney noo samee inaadna wareysatid anaa in badan diiday soo waxaan idiin sheegayaa haddiiba dadka la wareysanayo laga dhigayo ay hanaba gaartay heer ay tiraahdo ha waree galkacyo karaabari way tiri aad qabiil keentay haddee waxaan kuu sheegayaa doofaarka fiqci la-aan baa loo cadaabaa qofaan qabiil lahayn ma jiro gaalkacyana dadka ka yimid waa aad taqaanaa laakiin waxaan ku tusi doonaa meeshaan inaan ka samayn doono maxkamad oo dadka laga wareysan doono waryaa waa ku baloogayaa hoy cunugaas xunka faatax la leeyahay naba inaadan soo qabsanaynin facebookayga baxtugiho soo waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliyey yaan soo qabtaa waryaan soo qabtaa waa barbaranaya adduunka ilaahay iskuulkaba a b c baa la iiga soo bilaaba haddana waa soo qabtay hano waa rufyaan waana warey kow dumarka ay ku abayo hadda ka horna gabdho badan baan dhegaystay ayadoo ku bahdilaysa qofka ay markaas la socotayna qofka kale oga hiilisaa dad badan oo ka eed sheeganayana waan arkay laakiin oo victim ah laakiin waxaan dhihi jiray social mediaha iska dhib badan ilaa aan arkay ano iga shidan tahay aniga oo ana iga shidan tahay ilaa aan arkay yaa jira idinka kana ku jira kay hameenkii waxaan idiin sheegayaa ilaa aan arkay anigoo iga shidan tahay oy baallaha iga riftay soo waxaan rabaa inaan idiin sheego lugtana may ahan faraskana may ahan laakiin waa doqonba waa tan doqon ma jeerteenba waa tan oo intay jirkaygii oo dhan dhamaysay geedkayga xididadiisa ku kala tilmaamaysaa ku jiray ilaahay baana mahadle haddii la xiray youtube-ka waa naciimo jookar qofkaani qofoo ceebtooda ay ku jirtay maacadadna wala xisaab wiil wadaadoo magaaladeena degan xataa waxaa ku jirtay ayadoo jirkiisa iyo geedkiisa kala tilmaamaysa xagee baan ku arkay waana wadaad masaajidka ku jira marka ilaahay baa mahad sheekh cabdirasaaq caydiisaa ku jirtay sheekh cabdirasaaq waa wadaad magaaladeena degan aflagaadadiisaa ku jirtay inta wadaad oo cayadooda ay ku jirtay iyo inta gabar oo marwaah oo cayadooda ay ku jirtay ilaahaan idinku dhaarshay ninkii gadayay minneapolis geedkeeda ku gadayay 24ka dagaalku ka dhacay qabqac ku waxaysmay ma anigaa suudaanta keenay markay sunta cabtay naciimo jookar state minnesota waan ka guuray oo hadda ka hor ka guuray yaan soo qabtaa yaa waxaan rabaa inaan idiin sheego qofku markaad dhiiqo markay dembi lagaa galo ama ay wax kugu dhacaan caydana ayadaa keentay shalayta markaan hadlayay laakiin anigu geedkaagii aad saas u haysay baan sheegaye ma waansan ayadoo lala qiiqaayo lanoo soo dirin maalintay ka hadashay ay social media ka hadashay oo faysal xawaashe yaa ay guursanaysay oo ay tiri aniga cid fara iga haysa lama arko cajaladaheedii ma waa suuqa la soo dhigin maanaha soo dhigay maanaha inta youtube ugu tegay soo dhigin baa soo dhigay naagta sanqada isqabata maalin walbaba icayda yaa ee ay caayi jirtay ee madax iyo calool ag fariisan jirta oo sanqada isqaban jirtayna ayaday ahayd kow maalintii daahir calasow uu caynayay ee inta lasoo dhigay cajaladaheedii baallaha laga rifaayena anaa ka riday oo yidhi war gabadha faraha ka qaada suuqaa soo fadhiistay soo waxaan rabaa inaan idiin sheego naaguhu dhilana ma daayaan qarisna ma daayaan war haddaad wixiina gadateen iyo haddii maaragtay aada qarsateen iyo haddaad wax guursateen iyo haddaad wax tuurtuurteen iyo haddii la idin kufsaday war naftiina daacad u noqda yaa naag naciimo jookar ka xan badan miyaa jirta social mediaha waxay kusoo gurta waad aragteene oo ay ka dhigaysa kaartuunka soo un dumar xantood dumarku siday u hadlaan soo ma ahan soo waxaan idiin sheegayaa qof kasta meel buu suuqan ka soo gala ayadaana xeebaha gabdhaha isku soo tuurtayoo gabadhay caayaysay nasteexa indhay ahayd oo magaalada ku cusub riisankay u caayaysana yaa madax iyo calool dartiisay ahayd
soo waxaan rabaa inaan idiin sheego intaad gabdhow iswada qabsataan ood iswada cuntaan oo aad iswada caydaan oo hadhow fara lagaa helo oo habartii dhihi jirtay waxeedii inta soo sheegatay idiin hiilinaysayna aad xagxagataan salkiin waa hoog naag siilkeedii suuqa u wareegayana ayada weeye siilkeedii naag uu suuqa wareegayana waa ayada aniguse ma wareejin ilaahay baan ku dhaartay inaan anigu wareejin ee ayadaa wareejisay madaxii calool baana $5 iibinayay xididadiisibay sheegtay markay lahaydna yaa asaga waa kii lahaa waa run haddeeraan keenaya imtaqaanayto videogaasna waa haystaay soo waxaan rabaa inaan idiin sheego beentuna waa been runtuna waa run ha u soo xiniyo qalloocsanina gabar Soomaaliyeed oo social mediaha soo gashay ha u soo xiniyo qalloocsanina laakiin waxaan idiin sheegayaa kulligiin oo dhan stress baan idinka wada buuxa dulmi baana la idinka galay intaasoo labadaas sano social mediaha ku jiray intaasoo ninba inta isoo wacdo nin walba wuxuu rabaa inuu wuxuu asagu jecel yahay oo gabdhaha lagu caayo inuu ii keeno never ma yeelin warjah baan intaan dhahan baallaha ka rifaa ee hadday waxa raggu ii keenaan aan halkaan la soo fariisan lahaayoon idi caayi lahaa rag badan oo i garab istaago oo ii hiiliyana waa heli lahaa idinkana haraggaan idinka qaadi lahaa laakiin diyaar uma ahayn in aan idi caayo gabar Soomaaliyeed inaan u hiiliyo oo aan baawarkeeda soo qaada mooyaane inaan baawarkeeda baabi'iyo diyaar uma ahayn laakiin raggu yaa doqonkooday wataan madaxii caloolkaad aragtay waa daraagaysti waa tuug gabdhuhu gadaa waa alcoholic waxba intaqaanaayeeto wax uusan magaaladaas niman waaweyn oo magaaladaa degan buu gabdhahoodii inta iskuulada Uber ugu diro ka soo qaadaa waxaasoo dhan fisiqa ninka saa u sameynaya rag baa protect garaynaya gabdhuhuna gabadhii u soo baxda ayagaa raba inay diirka saa uga qaadaan oo caayaan ayaan daraa idi haysata laakiin kuwa ceebtoodii qarsanayo anigu ceebtaydi waa sheegtay opportunity landna waa joogaaye maalina diinta aan kasii orda maalina aan kasoo wada laakiin waxaan idiin sheegayaa inaan aniga qofna yaa hal qof kaliya inaan la ii daynin MMS iyo rag inay noqotay MMS iyo rag inay noqotay baan idiin sheegayaa ee aniga aan keligay yaa inaan aniga madax iyo calool iyo ninka halkaan fadhiya horta kan habeen iyo maalin iyo subax iyo galab ninkan daacish la baxay horta hore yaa waad ogaan doontaane meel baan uga soo hari doonaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego gabdhaha Soomaaliyeedo anigu ama waan dhiman ama waan dallicin oo meel dheer baan aadin gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed oo social mediaha ama idiin soo gala ama dariska idinla ah ama dhibaatadu ku dhacday isu hiiliya naag walbay waad qodan tahay naag walbayna waad abiyuusan tahay laa bilaahi tallaahi naag ka dhaaran karta naag dulmi ka dhaaran kartoon dulmi lagu soo samaynina inaysa idinku jirin hadday idinku jirtana ama qurbaha ku dhalato ama dalkii ha ku dhalato runta markaan idiin sheego kulligiin waa dulmantihiin sida dherigii baad karaysaan baq baad ku haysaan laakiin MMS oo kale inaad inta noqotaan naqaska iska daadisa talo maalintee baan ogaan doonaa kulligood intay wada hadleen aan dhaho oo berigii maxaad u hadli weydeen oo waagii maxaad u hadlo inaan idin dhaho ilaahay waxba lama ahan sekretarigaygu inuu ii soo aruuriyo warka oo uu dhaho haa waxaana social media yaacahaya waxba ilaahay lama ahan dhaha taasa waa tii waagii faanaysay waa tii koomanka cayda ii qoraysay ayana waa naag i cayda haddaad aragtaan naag i cayda waa naag inta dulman haddana wax qarinaysa anyway waad salaamayaa dad badan inaan soo qabqabtaan rabay wiilal yar baa soo yaacaya Rooda Faarax gabadhaasaan dayayaa bar inay soo qabsato hadduu doono waa Faarax inkii wata magaceeda wiilal badan oo fiican baa jira oo gabdhaha iiga fiican oo adaab leh oo i jecel oo ii hiiliya oo ciishooda baa jira oo dumarka aan habeen iyo maalin u hiilinayo iiga fiican laakiin waa wiilashee waa wiilal hooyo fiican dhashay waa wiilal hooyo damiir lihi dhashay waa wiilal
hooyo wax garanaysa waa wiil hooyadii jecel wiilka aniga ii hiiliyo i jecel wiilka ii hiiliya oo aniga i jecel waa wiil wax garanaya oo ilaahay caqli siiyey kow laakiin yaa nimanka masaajidyada ku jira dee aniga dugsi baa laygu soo farxumeeyey soo ma ogid kuwiin saleynana dugsigii iyo masaajidkiiba waa lagu farxumeeyey soo ma ogid laakiin waxaan idiin sheegayaa dulmiga inaynu iska dayno maxaad diinta ugu gabanaysaan maxaad diinta ugu gabanaysaan gaal iyo muslin iyo nan muslin intuba yaa way yihiin way sameeyaan way xumeeyaan gabdhaha yaa way xumeeyaan gabdhaha way xumeeyaan marwo miyaa la dhahaa samtin soo qabso waxaan idiin sheegayaa marka intaad meel soo fariisatid inaad dad iska gadid hadday runta ka sheegto waxay ka baqday hano hadday runta ka sheegto arrinta meesha ka jirtay oo ay ninkaas runta ka sheegto yaa gurigeeda naagta ay joogto soomaalidu sidoodaba horta waa weji caabid waa weji caabid hoteel baa seexan kartaa intaa runta sheegtay soo ma ogid yaa hoteel baad seexan kartaa laakiin dulmi dad looguma hiiliyo marka dulmiga dadka ha ugu hiilinina iska daaye qofkii khaldan wuu khaldan yahay tii aan ka caqli badnahay tii aan ka bahalkeysnahay tii aan ka fiicanahay tii aan ka codkarsanahay kulligoodoo dhan mid walbaba waa jalas nimanku waxbay isu quuraan nimanku wax badan bay isu quuraan laakiin maana wiftooyinku waxba isuma quuraan waay jalas baa tihiin nimanku doqon baad arkaysaa iyagiyo koolkoolinahayo oo wadwadaad arkaysaa maxaa keenay waad salaamayaa gabadhaasaan rabay inaan soo qabto iyadiina soo qaban waayey marka ma garanayo I don't know I invite miyaa la dhahaa maxaan ku invite gareeyay hadda maba aqaan waxaan ku invite gareeyay so waxaan rabaa inaan idiin sheego intaasaan ku dhammaynayaa waa isku joognaa social mediahana waa wada joognaa hana warkeeda halkaan anigu aan ku jiro ama ninkaas ku jirana waan soo dhigdhigayaa beentuna way baaba-aysaa laakiin waxa weeye inaad waxaa la qaatay allow maxaa mid inta isku kaysoo salladay xoogaagii dadka usoo gelgeli jiray weyday inta isku kaysoo salladay soo baa garoonkaagaa lagu soo raadinayaa soo ma shalay bay lahayd waxaa laygu xumeeyey waa bar qof lasoo dulmay sideedaba dadka lasoo dulmo waa dad mataqaanaayeto dadka dulmo weeye marka waa idi salaamayaa reer dumarland markaan lifekaan ka baxo dumarland baan soo gelayaa waa idin salaamayaa asxaabta meesha ku jirta oo sharafta leh maamalyuun waa la caayay maalin walbana caydeeda waa keenaya bar idinku caybaad ka baqaysaan waa qarinaysaane ayadoo naag ay caayayaan ayadoo madax iyo calool caayayo isagoo shiikh iska dhigaya asagoo ama mataqaanaayeeto ay leedahay wiil fiicanoo noo qabsoomay weeye kulligoodoo dhan waa keenaya laakiin waxaan idiin sheegaya every single day halkaanaan keenaya every single day halkaan baan keenayaa maxaana u keenayaa inaan arko inaan dadka dhegaysiiyo oo la maqlo yaa dad badan baa waxay igu dhaheen cajaladahaagaas english ma ka dhigi karnaa yes haddaa muslin tahay haddaa nan muslin tahay intaad english ka dhigtaan everywhere dhiga everywhere intaad english ka dhigtaan caydaas intaad english ka dhigtaan inaanaan noolayn geliya meel walba so why so waxaa weeyaan xuquuqda aadamaha dadkan muslim baan nahay gabdhaan nahay dumar baan nahay hooyooyin baan nahay victim baan nahay sida naloo caynayaan dhegaysiinaynaa marka sida naloo caynayo baan dhegaysiinaynaa sharcigana iyo ruulka iyo regulationkuna waa gaar maanta qabo oo mataqaanaa maanta qabo oo xir oo saan meeshaan ma taalo wax walba process bay leeyihiin wax walba process bay leeyihiin ma idin qaban karo idonna waxa ku dhacay kaamiradaydu meelay ka dansan tahay miyaa yaqaanaa deeno miyaan garanaya
dee anigu miyaan garanayaa marka qof kasta waan soo qabanayaa dee garan maayo dee so waxa weeye yaa qaylo yeertaa waxaa la yihi soomaalida waxay tidhaahdaa qaylo yeertaa qolaysa oga darin marka qaylo kastoo dhacda waa caan bixinaynaa waa baraynaa adduunkan waxaan baraynaa bar qurbaan joognaaye dhibaatada nalagu hayo bar ha la arko yaa ka dambeeya cabdisaaq xaashi bay candhadiisa aragtay xaggee cabdisaaq xaashi anaga anigu candhadiisa ku arka waryaha cabdisaaq xaashi maana candhadaada arkay nicimo jokar weydii war weligin ma iga maqashan candhadiisa arka midhaa iyaga iyo midhaa labadoodaa isu tegay anigu ma arag candhadiisa weligeyna ma oran candhadiisa arka weligay hal dacwaan ka sheegtay oan iri bahalkii marka ayadaa ku keentay xeebta kugu soo tuurtay nicimo jokar baa tiri waa kana codkeedii cabdisaaq xaashi bay candhadiisa aragtay tiri hala weydiiyey masaajidka inta loogu tago never ma arag maxaa candhadiisa itusay gabar reeraha iyagaa buu qabi jiray balaa candhadaada aragtay dhaclaama kaa ifta been leydiiye goormaan arka nama goormaan arka waata dhegeysta oo intay jirkaygii oo dhan dhamaysay geedkayga xididadiisa ku kala tilmaamaysaa ku jiray suuqu yaacahay ilaahay baana mahadle haddii la xiray youtube-ka anigoo hadlayaa weliba inta qof oo ceebtooda ay ku jirtay maa cadadna walaa xisaab wiil wadaadoo magaaladeena degan xataa waxaa ku jirtay ayadoo jirkiisa iyo geedkiisa kala tilmaamaysa yaa weligiis maqlay waana wadaad masaajidka ku jira marka ilaahay baa mahad sheekh cabdirasaaq caayadiisaa ku jirtay sheekh cabdirasaaq waa wadaad magaaladeena degan aflagaadadiisaa ku jirtay inta wadaad oo caayadooda ay ku jirtay iyo inta gabar oo marwaah oo caayadooda ay ku jirtay baa ilaahay waxaa ugu mahadayaa youtube-kaas haddii la xiray bikaas intaasoo cajal baa diliid garaysmaya ilaahay baana mahadle haddii ilaahay uu celiyana wax khayr inay ku sheegtaa ilaahay kaga rajaynaynaa inay wax khayr ku sheegtaa maanaha siilkeeda maanaha kala qabtay maanaha bahalkeeda gad iri maanaha ninka sii iri maanaha ku iri ninka warmadow ee mataqaanaa ka gad maanaha ku iri maanaha karaamada kaa qaaday hal maalin baan maanaha waarid ku ah calaayati xaal waxaan idiin sheegayaa tii dembi gashaaba aday waxay rabtaa inay dhoobo ku mariso oo dhiiqo ku mariso naagtaan maalintay minnesooto ninku uu gadgadi jiray yaa ninku maalintuu gadgadi jiray maanaha magaaladan joogay maalintay sunta cabaysaysa maanaha magaaladan joogay inay iska aamustaa la qaatay waa doqon madax iyo calool waxay tiri one day bay arka one day muxuu arkayaa intuu war ka sheegayna waad arkaysa inay middle of the night u shaqayn jirtay si hamayn barkii intay isoo wacaan bay sanka isqabin jirta iyadoo caayaysa kow asaguna waa sheegay inay middle of the night inay u shaqayn jirtay oo wax usoo diri jirtay waa nahaabad kow laakiin waagay suusayrka noqotay youtube-ka ka soo saara oo facebookyada soo saara waagay suusayrka iska dhigtay facebooka hala soo saara facebook hala soo sheergareeyo youtube-yada ku jiraa way sunta cabaysay so bar adba victim baad ahayde amba 2-3 waxyaalood baan damca inaan sameeyo markii dhibku iga batay inaan isdilo inaan wax dilo iyo inaan diinta islaamka ka baxaan qaatay haddaan isdili lahaana maanta dee life ma ahaadeen oo ilaahay baa iga qabtay haddaan wax dili lahaana maanta jeel baan ku jiri lahaa haddaanse diintii inta ka baxay soo noqday yaa maxaa meeshaan yaalla waa soo toobad keena waa xanaaqay waa ciishooday markaan kiniisadda tagayna runtii qalbi degan baan kasoo helay waa i dejiyeen they don't care inaan muslim noqdo iyo inaan mataqaanaayo kristiyaan noqdo ma ay kala jeclayn laakiin bini aadanimaa la iisoo dhaweeyey so markaan kaam noqdayna ilaahayga weynoo waaxidkaabaa i xafiday oo isoo celiyey laakiin 3 choice nin baa waxaa arkayay hanadan meesheeda ku jirto diinta ma albaab furan baayo marna ma la gelayaa marna ma laga baxaya diinta asaga ma iskale diinta adiga ma iskale awsruweel gaabo yaa maadaa iskale qofkii reer minnesota ahaw cabdisaaq xaashi waxaa ku tiraahdaa maama milyuun miyaa guskaaga aragtay bar soo weydiiye naagtaan xuntahay edabta daran leh oo le cabdisaaq xaashi bay tiri bahalkiisaan arkay ilaa iyagaa isku reer ahe isla cumar maxamuud ahe ha la soo weydiiyo meeshaan ku ridaysa ha la soo sheego inaan inta wiil yar irikaale ii waani uu waanadii iga diiday waa aan sheegay inaan wax kala sheegay qofkii maqlayow soo dhig soo waxaa idiin sheegayaa waa nahaabad baybolarna way qabtaa sow hadday caqli leedahay ayadoon sharci lahayn nin sharci aan lahayn
oo waddan kala jooga ma ay guursateen ayadoon sharci lahayn nin sharci aan lahayn oo waddan kala jooga ma midda kale qofka wixii kugu dhacay maahan inaad xor u hadashid oo tiraahda haa waa igu dhacda 2 times bay suicide noqoto bay sun cabti 2 jeer oo ayadu weliba ninka boyfriend girlfriend la ahaa buu markuu danaheedii helay buu xoogaa toojar u qabta markaasay sun u cabti markaasay waxay iska dhigaysaa waa smoke markaasay waxay rabtaa maanta inay tiraahdo yaa saanaa tahay iyo kanaa tahay no I'm not youtube-kaana qof dhintay iyo qof noolba wuu jiraa qofku wax walba saacad bay leeyihiin haddaan saacadiisii dhammaan wuu soo noqon hadduuna soo noqonina oon ku talagalana meel walba waa aan la soo fariisan warkayga iyo dulmiga iyo waxa jira laakiin neefaday yaa adigu hadda is ilaali mar labaad yaan lagaa duubinoo mar labaad yaadan suicide noqon maagiina cilaan baa dukaan yar ku haysan jirtay haddana meel baad calalla ku haysataa diidayna ma taqaanid so waan salaamaya meeshaan wax la isu dhaafaya malahan kuwa dadkuugu xiga baana kuugu daran baa kuugu daran shalayna gabadhii nasteexa indha ahayd naagtii cayrsanaysay ayaday ahayd maxay ku cayrsanaysay mataqaanaa waxay shukaansatay bahalkii baan kula challenge gareeyay maxay nasteexa indha ku falaysaa mataqaanaa yati xawaash waa wiilina adeerkeeda meel bayna ka mataqaanaa waa dad fanaaniin ah laakiin ayadu 3 nicib baa la dhahaa garigaagaa la bi'i 3 nicib soo waxaan kuu sheegaya dhibaatada xawaaso ku dhacdana ayadaa u keenta haddii xawaasho la caayo faysal xawaas ayadaa u keenta waa diqsiguna siduu ordahayuu shaha kaaga dhacaya dalaq waa diqsi meel walba waa ku dhacaysaa sandiyaga maxay uga soo guurtay dadka soomaali ugu eda badan baa sandiyaga degan kulli ayadoo wada caayaysa waa isixreen waa ikaneeyeen waa diqsi adigu diqsi maxaa ku taqaanaa diqsigu sida u jooga biyahaaga ku dhaco shaahagana wuu ku diqsi meelaagii galayba fud kulul dabaasha dinos ma ku soo qabtaa dinos aan ku soo qabta haddaad diyaar u tahay waxaan idiin sheegayaa nabad iyo nolol waan rabnaa habbi baan rabnaa farxad baan rabnaa inaan noolaano waan rabnaa marka waxaan idiin sheegayaa halo maamo مليون maama seetaha في عنتها مامو أنا كوين لكن مامو ومع حشمد مدام maya أنوتها maama waa magacayga ومدام maama waa أنوت magac مدام أنوتها هي وجميع الروح أنوت مقدن وكجرا هلا ما فهمت saasaa la rabaa ku jir maama إيور في عنتها عفمتك هذا maama aada iyo aad horta aniga muddo badan aan ku fiirsanayay يعني shakhsiyadda qofka ayaan fiiriya aniga ma fiiriyo yani hadalkaadaan fiiriyey sida aad runta u sheegaysaan fiiriyey sida aad u tahay qof dhif ah dhif waxaa la yihahdaa qofka genius may dhahaan ingiriiska saasay dhahaan umalina qof oo dhif oo aan la helin yani oo bulshada ka dhex muuqdaa tahay laakiin nasiib darro hal nasiib daraa kugu dhacdo soomaaliya ka dhalatay midda kale soomaalidu malaha sokeeye iyo shisheeye xataa ma kala laha soomaalidu waa isku wada mid dadka kugu dhowaa ku dhibaayo mararka qaar dadka kugu shisheeya ku dhibaayo mararka qaar soomaali dhan ku dhibayso yacni waxaan la yaabanahay dadka qaar hadda inay kuleeyihiin waa waalan tahay mujeda ama ma caafimaad qabto ujeedadoodu waxay la yaaban yihiin male abilityga oo intaas la eg oo adiga aa leedaho intaasoo qofka kuna soomaaliya ku caynayso iyo dhibaatada lagugu sameynayo iyo sida usoo taagantay la yaabiyin marka iyagu haddii sidaadoo kale 2 maalin lagu sameeyo way waalan lahayn mafahanta marka tooday kaa cabirayaan marka waxay ku leeyihiin way waalan tahay maba fiyoobaa kartay aaminsiin waa runtood sababtoo ayagaa daciifnimadaasi ku jirtaa mafahanta mar kalena aan iskaa bari ayadiina waa tahay aniga ayadii baa tahay oo aabbahay waxaa dhalay biciidyahan cawrala maxamed kure islaan yidhaha aabbahay dhashay allah naxariistay 103 sano ku dhimatay reer gaali area waxaa jirta marka dadka ku caynayo fiiri
hal xigmad oo weyn aan ku siinaa caawa inkastoo iga xigmad badan tahay oo aan kugu daydo laakiin hal xigmad aan ku wallahi siinaa wax badan baan kaa qaadanaya maantana waa kaa hadlaya waa ogaa aad baan u dhegaystaa hadda waxaan ballanba ku qaaday hadda kabacdi inaan ku dhegaysto wax badan baan kaa kororsadaa allah ku sharfo dulqaadku ka mid yahay waxaan ku siinaa nin baa hadda ka hor sano kontoneyad inayd umalina ayaa waxaa loo doortay maraykan buu ahaa soddon jir asagoo waxaa loo doortay new york inuu xukumo markaasaa ummadii oo dhan caysay macunugaana xukumaya annaga waa afartameeyadii kontomeeyadii aad baa loo caayay macnaha axmaqaa tahay barofesoro rag waaweyna cayna ma fahamta marka ninkii wuxuu ku sigtay walwal dartiis inuu yidhaahdo ma rabo meeshaan aniga aabihiis